ayaa samaysmay waqtigaas ay leeyihiin ayaa waxa isla space-ka laftiisii iyo qaraxii ka samaysmay asteroids waxa nimankaan dhahdo iyo meteoroids kuwaas dabadeedna half billion sano ayay garaacayeen dhulka oo mooha marka asteroidkan iyo meteoroidku wuxuu wataa macdanta la yiraahdo proxinka macdanta proxinka la yiraahdo dhulka laga helaa siba inaga qoyeenan oo kale waxaan ku arkay buurtan almis oo kale proxinkaasi waxa uu la falgalaa macdanta la yiraahdo olafinka ee greenka ayuu la falgalaa marka aeroskaraska dhulka la kabkiisa sare oo qaybta biyaha haysa ayuu markaasi oo fadhiya wixii underground water inuu ka hadlo doono iyadana ayaa wixii hayay curayaasha hayay ayuu kamid yahay marka kan uu ka kooban yahay asteroidkii baa dabadeedna dhulkii bumping ku sameeyo garaacay half million sano ayuu garaacay kadibna markaasi biyihii yaraa ee ku jiray isaga xogaa Europe ayaa ku jira biyihii yaraa ee ku jiray ayaa markaasi noqday markaasi inay ku bataan dhulkii isla markaana qaboojiyaan kadibna waxa daboolay barafkiina hadana asteroids kale ayaa soo dhacay asteroidskii baa dabadeedna oceansku iyo bado ay ka samaysmeen oceanskii baa dabadeedna waxay yeesheen oo meteoroidkan iyo asteroidkan waxay ay badda markay fadhiisteen waxay kula sameeyeen black carbon ay sameeyeen black carbon kii baa dabadeedna wax kala shabay yiraahdeen unuga yar oo cells yar oo waxa samaysmay yiraahdeen bacteria cellskii samaysmay ayaa dabadeedna waxay dhaliyeen inay iyaga laftoodina ay sii daayaan qac kale kadibna oxygen-tii ayaa badii ka soo baxday layerkii bay hadana ay tagtay sidaas dhulkii oo samaysmay saynisyahana Stephen Hawking oo kale iyo odaygii la oran jiray Albert Einstein iyo mid kale oo Williams ay yiraahdaan rag badan oo fiisiisa ayaa dooda noocaas ay qabaan ay uga sheekeynayaan war waxay leeyihiin waa biyihii badda ayuunbay arrintaasi ahayd haddana mar kale waxay leeyihiin meteoroidka ayaa biyaha dhulka hoosena keenay underground water